waa qaybtii soddonaad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl. dabcan sheekadan waxaa halkudhigeeda iska leh al-abwaan isma sitowsi. dhegeysi habboon qaybteedii soddonaad oo xiiso gooni ah leh. qaybtan waxaan ugu magac darnay bilan oo noqotay halbowlaha isku xidha baari iyo barni. bilan ayadoo dhoolla caddeynaysa ayay ugu jawaabtay, kaalay baariyow, aniga ma waxaan idiin noqday halbowlaha xiriirkiina? baari oo kaftan dhaba maraya ayuu ku yidhi, haa bilanay waa tahay, sababtoo ah qofka kaliya ee jacaylkeena samihiisa ka talin karo waa adiga. teeda kale barni hadda dalka ilama joogto, haddaan waayana ma aqaan ruux aan kala xidhiidho oon adiga ahayn. bilan oo qoslaysa ayay ugu hadal gaabisay, waa sax aboobe. baarina asagoo doonaya inuu ogaado xaaladaha barnidiisii ayuu yidhi, war iyo dhammaantiise barni iiga waran. barni hadda iigu wardambaysay, xitaa waxay igu amartay inaan hooygeennii soo arko, marka anigoo kuu soo socda ayaa adigii i soo wacay. baari wuxuu bilan ka qortay raqamkii ay kala soo xidhiirtay gaclisidiisa barni, wuxuuna isla durba sameeyey inuu tago dukaan u dhowaa si uu kaga soo iibsado kaarar. wuxuuna soo qaatay 10 kaar oo isku dheggan, maadaama baari uu doonayay inuu si fiican ula sheekaysto barnidiisa, waayo wuxuu u heelanaa misna hamuun qabay inuu barnidiisii wax badan kala hadlo. isla markiiba markuu kaararkii ku shubtay wuxuu koolgareeyey nambarkeedii la soo siiyey, waayo xilligaa waxay ahayd xilli maalin ah markii la eega dhanka geeska Afrika ee baari uu joogo. Yurubna habeen dadku dhan wada hurdaan ayay u ahayd. markuu taleefoonkii wacay waxaa ka qabtay cajal, wuxuu sameeyuu garan waayey, mana ogeyn baari cadde in xilligan habeen saqdhexe u tahay barni waddankay joogto. waxaana baari yare ku dhacay waqtigii uu aadi lahaa iskuulkiisii, maadaama maalinka ay u qorshaysnayd inuu soo arko bareyfadkiisii in dhawiitu uu tegin. wuxuuna is yidhi, dabcan barnidaydii saacan inay iga biisi tahaa dhici kartee, caawan si wacan ula hadli doonaaye. qaybtii 30aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jacayl waa naga intaa. intaynu dib kulmi doonno qaybtan qaybaha xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. waana hal abuurkii al-abwaan isma sitowsi. Tiri way kan walaacii haystiisa
kuwaaye